عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعبي الصوماليين مل walbo daafaha dunida aad ka joogtaan soo dhawaada halka aad nagala socotaan waa difaac qaranti fi fadlan hadii aad nagu cusubtahay like iyo follow dheh dhamaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkooda iyo dadkooda jecel iyo dawladooda waxaan ka codsanaynaa inay follow dhahaan halka kuwa cadowgaana aysan noo follow gareyn halkooda naga joogaan inta kadib maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay laba qodob oo kaliya khudbadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ka jeediyay golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka labadiisa gole oo maanta furmay sidoo kale kuwii jadiidka ahaa ee mucaaradka dawladnimada Soomaaliyeed oo dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay magaalada Nairobi inta kadib waxaan rabaa maxay tahay sababta xilligan dawladdu hal sano jirta in dhaqaaqa u bilaabeen waa sida caadada ahayd dawlad kasta saasay ku sameeyaan war saxaafadeed waxa soo saaray Xasan Cali Khayre Cabdinuur Hebel waxwalaha Shariif Sheekh Ahmed Abdulqaadir Cusuble iyo ninka la yiraahdo Xiirane iyo Umar Cabdirashiid Xiirane xanuun baa ugu ogeynay maxaa keenay meesha waa su'aal isweydiin mudan way waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Xasan dal xoreeye Xasan dal badbaadiye ayaa maanta khudbadiisa taariikhiga ahayd ka jeediyay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa gole oo maanta ay ku beegneed furitaankii kalfadhigii labaad waxaan rabaa khudbadu maxay waxyaalo badan ay khudbada ka hadlaysay laakiin waxaan rabaa 1 iyo 2 iyo 1 inaan ka soo sheego madaxweynuhu wuxuu ka hadlay tan iyo halka sano uu joogay isbedelkii dhacay meesha ay dalka ugu yimaadeen iyo halka maanta dalku maray isbisari ama qaasatan dadkina Soomaaliga yaqaanaan la hadlayay amniga caasimadda magaalada Muqdisho sidoo ahaa iyo maanta sidoo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ka hadlay heshiiskii shalayto ay wada gaareen golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya in shacbiga Soomaaliyeed intaan ka badan aysan bilaa xuquuq aysan si ahaan karin oo dulmana aysan si ahaan karin loona baahan yahay dadka in awoodoodii dib loogu celiyo doorashada ay galaan baarlamaanku waa u raxleeyeen way soo dhaweeyeen wayna ogolaadeen in baarlamaanka sharciga la hor keeno dabadeedna ay ansixiyaan madaxweynuhu wuxuu ku nuuxsaday amniga caasimadda magaalada Muqdisho bal isweydii mudane Soomaali baa tahay Shariif kale noo weydii Abdulqaadir Cusuble noo weydii Hebel kale noo weydii shalay iyo maanta Muqdisho sayta amniga caasimadda siiya ana shalay ka yimid qoyskaaga degan ehelkayga degan Soomaali baa degan bal warayso shacbiga magaalada Muqdisho maanta amnigooda sidoo yahay ayaga kaaga jawaabay aniga ma ayaa kaaga jawaabaya aniga ma madaxweynuhu waa baanay 8 bilood hal sano uu jooga 4 bilood oo dalka la arin bataqaana amniga laga shaqeynaya ma aha 8 bilood oo qarax la'aan ah oo toogasho la'aan ah oo dil la'aan ah oo isbaar la'aan ah oo baad la'aan ah sidoo kale madaxweynaha wuxuu ku nuuxsaday in canshuurtii baada ahayd ee shacbiga Soomaaliyeed laga qaadi jiray magaalada Muqdisho ee labaaleyda ahayd midna dawladda midna al-shabaabka waliba al-shabaabka ay badneed inay joojiyeen in akoonadooda friis laga dhigay in al-shabaabna laga adkaaday sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ku baanay hal sano gudaheed inuu gobolka Shabeellada Dhexe oo dhan ku xoreeyay gobolkii Mudug inta laga haystay ka xoreeyay galgaduud inta laga haystay ka xoreeyay ceelbuur oo siyaasad ahaan u cakiran maahe madaxweyne waxaan leenahay annaga hadaan shacbiga Soomaaliyeednahay waa ku taageersanaa annagu bila xuquuq baan ahayn dulmanayaal baan ahayn xuquuqdeena dad gooniya qaadanay dad baa ku shaqaysanay mudane madaxweyne annagu waxaan taageersanaa inaad awood dib noogu soo celisay Allahumma lakal hamdu baan leenahay Allahumma lakal hamdu ilaahay baan mahad iskale inta madaxweynahan kaga gudbaya aan aad ula yaabay ummadda Soomaaliyeed in aqligeeda lagu ciyaaray iyo in ay ummadda doqoban yihiin baan kala garan way ragii aad wada taqaaneen ee jadiidka ee caqabada ku ah dawladnimada Soomaaliyeed iyo dimuqraadiyiinta dalka ayaa Nairobi waraqad ka soo xariiqay
waxaa lay sheegay xiirane oo isbitaal ka soo baxay inuu ka mid yahay ragga noocaas ah kama reexaan ahaan xiirane dambiilo ayuu noo yahay waxaan ku eedeynaynaa haadaantii uu ka tuuray xuquuqdii iyo awooddii beelweynta mareexaan ee gobolka jubbada hoose ee deegaanka Sabca Sharaaf 500 oo askari oo ciidan ah ayuu Axmed Madow gacanta u geliyay xabad baa loo togtay halkaa noo soo fariisto sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmedow maxaakiimtaad ku soo caanbaxday 6 bilood baa shaqaysay amniga magaalada Muqdisho ka dhigtay xasan labo ku dheeri 8 bilood oo xasiliyay magaalada Muqdisho intii noo isku duuduubaya matashan ilaan awoodii shacbiga ba loo celiyay xildhibaano hadaatiin baarlamaanka imaada siyaasiyiin hore ra'iisul wasaare hore dalkan axsaab qaran buu aad axsaab soo sameeysta matalaad markaa heshaan ka hadla arrimaha siyaasadda laakiin hadda saacadan meel kaga banaan ma leh shalay farmaajad mucaarad ku haydan darad xasanad mucaarad ku haydan darad shariifad mucaarad ku haydan maantana xasanad mucaarad ku tiin aqliga marka cidaad uga ciyaaraysan adinka idin taala annaga ma aha waxaan leeyahay nimayahow ummadda dhibaatada ka daaya iskana jooga halkiina Puntland aad kuma marsiinaysaan oo leedin waa dawlad Puntland madaxweynaha waqtigiisu waa dhamaaday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee mindada saawirta lida xilli muddo xileedkii dastuuriga ahaa ee Saciid Cabdullaahi Dani waa dhamaaday doorasho laga rabaa Soomaaliya majority rule minority rule afar maamul goboleed iyo ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii iyo gudoonkii baarlamaanka mar haday joogan cid kale oo maanta matalaad looga baahan yahay ma jirto Saciid waxaan asaga ka rabnaa inuu Puntland kala badbaadiyo doorasho qabto adinka waxaan ka rabnaa madashoy nimanka halka fadhiya ee hadda kullada ku dhawaaqi doono kulli rag fara badan baa hadda lagu tashkiilinayaa inay ka soo qayb galaan oo sumcad ummadda ku dhaxlay waa uga digaynaa horaan idin taageernay wanaagii Soomaaliyeed ku taageernay dadkani waa dad cambaaraysan way marka Sheekh Shariif ka saarto dadkan dad cambaaraysan way dadaan bulshada shacabka matalaad ku dhaxlayn way ragga siyaasiyiinta anagu taageereynay ee xilka hore soo qabto ka fogow dabinka iskaga fogaada shacbiga Soomaaliyeed waa foojigan yihiin xasan maanta madaxweynaha jamhuuriyadda maanta garabkiisaan taagannahay wax qabadkiisana ku taageerinaa kow la dagaalanka argagixisada xasilinta amniga dib u heshiisiinta iyo awoodii uu shacbiga ku soo celiyay gacantoodii intaas xasan maanta shacbiga Soomaaliyeed baa garab istaagan dadkii bila xuquuqda ahaa garab taagan dadkii la dulmaa garab taagan maanta cidna ma hor istaagi karta Xasan Maxamed waa madaxweyne awood leh waa madaxweyne maanta ummadda Soomaaliyeed oo dhan u riyaaqday haddii saaka sanduuq xamar la dhigo wallahi xasan baa soo baxay ana in kugu dhaaranay itusoo itaabsi Sheekh Shariif oo 6 bilood oo xamar maxaakiimtii isku rarankeed ay nabad aad ka dhigtay laba lagu dheeri 8 bilood oo xamar ay sabqushda ka dhihin ramadaankii lagu soomay nabad ka dhacday argagixisada la baacsaday waa laga sareeyay marka levelku isku mid tiin miisaanka aga dhigan ku leenahay حسن على غيره معلنا ولا فش وين فاتكم سياسة دب لو فيريو مدحويني على شقينيسي ee ku soo saaray ee adoo xirada qaxootiga ka shaqeynay ra'iisul wasaare ka dhigay ee aad xidhnimo u xeerin ee aan saaxiibtinimo u xeerin ee abaal ku galad u xeerin ee madaxweynenimo u xeerin ee lacagaha ku dhigtay saacadii u dambeeyay baa horta Soomaali kaaga filan dadna saaka taageero waxa ka haysta Xasan Eelay iyo Cali Xooshka Ciise Maxamuud cid kale ma hayst Xasan Eelay oo yantaar ah iyo Cali Xoosh baad ka haysataa saakayta taageero maxaad ku diidaysaa dalka doorashada ma fadina gasho murasada tahay xamar baad degan tahay degmada Daynile iyo Horwadaag soo xildhibaanka kaaga soo baxayaan maxaad dadka ugu dhibaateynaysaa maxaad ku diidanta Daynile soo xildhibaanka kaaga soo baxayaan maxaad ku diidantahay macnaheedu waxa weeye inaad lagu had dawladnimada Soomaaliyeed qabataan beesha caalamka dawladdu waa siideys maskax marka hore la jarrabay oo soo tababaratay oo marka dambana xasishay baa dalka maanta xukumayso Xasan Cali Khayre waxaan ku leeyahay shacbiga murasada dad matalayso oo maanta aad hogaamiyahoodii tahay xasanow Daynile doorasho gasheeda Horwadaag doorasho gasheeda xamar xuquuqda murasadaha ilaanada intaasaan xasan leeyahay asxaabta kale intaasaan leeyahay xiirano wadna warkaaga waa haynaa waxba noogu ka haray saaki ma jiraan
انت على الله شقيس حسب باكو فلان من ريحان واحد وجيستان naga badan qabiilkana kuma bad qabo Soomaalina kuma bad qabto Puntland marka daba lagu soo saxray ka siidaa meeshaas wax ku yaala ma jiraan waxa soo haray umada Soomaaliyeed si guud in loo hadal raba Soomaalidu abaal ma laha war 4 milyan oo shacab Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ku nool koo arkay Twitterada iyo Facebook ka qeylay 4 million people ba ku nool wardunida xagee lagu arkay 490 kun oo 4 milyan xaquuqdooda u diidan muddo 20 iyo dhowr sano Puntland oo 90 kun oo qof ku nooshahay ayaa xamar oo 4 milyan oo qof ay ku nooshahay xaquuqdooda u diidan war xamar nagama astahayso war xamar dawladnimada Soomaaliyeed oo dhimatay waa gogashiiso dawladnimada Soomaaliyeed war xamar 4 milyan oo noo dhig baxayay oo noo dhimanayay oo hantidooda burburaysay oo intaas Soomaali dawladnimadeedii u burburayso oo dhihi kara warna dhaafiyo meelaha dawladnimada la aadan dhihi karay ayaa waxaan ugu abaalgudnay 4 milyan inay 100 kun oo qof ay yiraahdaan ma xaquuq ma leeyihiin imisa lagu sii hayn karaa 20 sano ay samriyeen si un bay noqonaysaa naag ma seersan aamusnaan baa ilmo looga dhalaa Puntland waa ma seersan tahay kooxdan waa ma seersan yihiin intaas lagu hay war anagu waa garwaaqsanay war waa garanay war inay xamar dulmanayd 20 iyo dhowr sano xilligii carta ilaa iyo hadda dawladnimada Soomaaliya ay ku shaqeynaysay u dhigbaxaysay 20 sano oo maalintii u yartahay iyo bishii iyo sanadkii ugu yartahay ay kun qof dhimanaysay 20 kun oo qof ay xamar ku weyday nabadgelyo la'aan bay ku noqotay burbur baa ku gaaray baad baa lagaga qaaday waa u dhigbaxday maanta nagama astahasho xamarey haday 100 kun ku xumaysay annaga malaayiintii Soomaaliyeed oo ku xaal marinayno xamarey annaga ku xaal marinayno xaquuqdaada maanta miiskay saaranta cid hor istaagi karta ma leh matalaadaada miiskay saaranta cid hor istaagi karta ma leh hooyadii Soomaaliyeed baa tahay gogashii Soomaaliyeed baa tahay cidina maanta ku handadi karta ma jirto maanta waa maalintaadii matalaadaadii shacab midaadii xildhibaan midaadii aqalka sare caasimadii wixii oo dhan maanta banaankay ku yaalaan dabkeena saaranta xilligeedii bay ku soo aaday waxaan leenahay xamaray garabkaagii baan nahay 100 kun xilligay dadka dulmin jirtay waa la soo dhaafay maanta waxay maraysaa xamar oo uwcdi umada Soomaaliyeed gogashii umada Soomaaliyeed dad goban ay ku nool yihiin inta inoo samray in mardama bila xaquuq ay isku soo noqon xasan oo garabkaagan taaganahay hada shacbiga Soomaaliyeedna madaxweyne xasan sheekh maxamuud garabkaagan taaganahay xamar matalaadeedaan rabnaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh dhamaan shacbiga Soomaaliyeed laagiin falowna abaalash